Tigray ilaa gobolka saaxil ee galbeedka qaaradda Afrika waxay wajahaysaa mid ahaan marxaladihii colaadeed ee ugu adkaa taariikhda. Dagaallo argagixiso kuwa xoogag hubaysan oo shisheeye Afrika ka baxsan ay door sare ku leeyihiin ilaa kuwa qowmi ah ayaa qaaradda ka oogan kuwaas oo aan xalkoodu muuqan. Halka sidoo kale xiisadaha huraya ee gobolka bariga Afrika laga walwal qabo inay isu bedeli doonaan dagaal wakaaladeed The Proxy War uga dari doona mantiqadan fakhriga iyo colaaduhu ragaadiyaan. ururka fadhiidka loogu yeero ee midowga Afrika oo maalin ka hor meerto shireediisa 39aad kusoo gabagabowday magaalada Addis Ababa ayaa lagu dhaliilayaa inuu yahay mid diiradu ka luntay la jaan qaadayn isbedelada siyaasiga ah ee dunida ka dhacaya sidoo kalena aan u adeegayn maslaxadaha bulshooyinka qaaradda iyo ujeedooyinkii kale ee loo dhidbay. Su'aasha ah ururka midowga Afrika ma u adeegaya aragtidii loo asaasay oo uu jawaab baaris ku dhisan ka bixiyay macadka lagu magacaabo Pan African Agenda ayaa noqotay maya. macadkan oo baaristiisa ku dul istaagay tiirarkii loo asaasay ururkan sida dhinacyada xakamaynta colaadaha, ilaalinta rayidka, horumarinta isdhexgalka bulshooyinka qaaradda iyo ku metelida Afrika fagaarayaasha dunidan isbedelada waaweyn ka socdaan ayaa natiijadu noqotay in ururku intaasba ka gaabiyay. Taasi waxa ay daaha ka rogtay in fashilka ururada Afrika ku dhacayahay halka ay ka bilaabato eebada qaaraddu iyadoo marxaladdu halka joogto ayay haddana Afrika u muuqataa inay noqon doonto dhibanaha koowaad ee isbedelada cusub ee dunida ka dhacaya sida sharci ka talaabsiga ay ku kacayaan dalalka xuduudda leh, qadarin la'aanta ay wajahayaan hay'adihii ilaalin jiray shuruucda caalamiga ah iyo colaadaha quwadda hubeed iyo dhaqaale ku dhisan ee u muuqda inay mar kale si rasmi ah uga dhaxoogsanayaan bariga iyo galbeedka dunida. Afrika sinaba uguma diyaarsanan la falgalka isbedeladan ku dhisan siyaasadda iyo lacagta ee xuduudweynta dunidu horgalka u yihiin. Badweyn ay ku hafan doonto qaaradda duqda ah iyo marxalad aysan doornaba ka ciyaari karin ayay u muuqataa. Tan ugu daran ee laga walwalsan yahayna waa inay qaaradani noqon karto barxadda dheesha ama playgroundka xuduudweynta. marka laga yimaado xasaradaha ka dhashay faragelinada siyaasiga ah ee ay Afrika weligeedba la dhibtoonaysay waxa ayana dadka qaaradani dhibane u yihiin dhibaatooyinka gudaha siyaasadda danaysiga ku dhisan ee asaaska u tahay ee aafeeyay xasiloonida qaaradda oo xogtu waxa ay tabisay in Afrika haatan tahay hoyga kala bar tirada dadka ku barakacay xasaradaha maxalliga ah ee dunida. musuqa iyo hoggaan xumada Afrika caadada ka noqday ayaa iyana ah mushkilad kale oo aan sahlayn in qaaradani la jaan qaado isbedelada caalamiga ah. weydiinta ugu culus ee baarista uu sameeyay macadka Pan African Agenda ayaa ah ururka midowga Afrika ma yahay kii xilligan adag ka jawaabi lahaa marxaladaha qallafsan ee Afrika wajahayso, taas oo iyana jawaabteedu noqotay maya. Soomaaliya laf ahaanteeda ayaa xagal qaloocan kaga jirta xaaladan sirgaxan ee qaaraddu guud ahaan wajahayso hardanka bariga dhexe, hunguridoonka dalalka ee ku dhisan kheyraadka dalka iyo danaha shisheeye ee ku xeeran marinbiyoodyada istiraatiijiga ah ee gobolka ayay Soomaalidu xudun u noqotay, taasoo iyana sii fogeynaysa rajada laga qabay dib u kabashada dowladnimada dhismaheedu raagay ee Soomaaliya.